asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku soo dhowaada xigmadahan xiisaha badan ee aan idiin soo ururinay. ka faa'iidaysi habboon. ha ku xeeldheeraan mujaamalada iyo hadalka inaad qofka u qurqurxiso iyadooysan dhab ahayn si aadan ugu dhicin ceylka munaafiqnimada. hana ku xeeldheeraan sidoo kale hadalka oo aad loo caddeeyo si aadan uga dhaxlin natiijo aan fiicnayn. haddaba meesha u baahan in hadalka la caddeeya caddeey, halka u baahan in la sarbeebana sarbeeb, laakiin weligaa hadal qof ha u qurxin adoo isleh ha kaa raali noqdo ama xitaa adigoo ku farxadgelinaya. sababtoo ah qofku markuu ku weydiiyo xaalkiisa iyo siduu yahay, markaad dhabta u sheegto laga yaaba inuu isbeddel sameeyo, laakiin isagoo waxba hayn haddii aad tiraahdo samadaa iyo xidigahaabaad joogtaa, ogow qofkaasi waad dhagartay, laakiin waxaad mooddaa adigu inaad wax weyn tartay. haddii uu ku xanuujiyo hadalka dadka oo aad kuu dhibo, naftaada ha ku dhibin inaad wax badan ka fikirto hadalkooda. ku kalsoonow allah, sababtoo ah iyagu waa bashar oo keliya, waa adiga oo kale. waxa ay leeyihiin oo keliya waa carab, nafcina kuuma soo jiidi karaan, dhibna kaama celin karaan. dadka ixtiraam si lagu ixtiraamo. dhoolacadday ajir baad ka helaysaaye, hoos isku dhig oo ha isla weynaan, allaah ayaa ku sarraysiinaya. kala barka ku kalsoonaanta nafta waa inaadan dadka kale isla barbar dhigin. raaxada barkeedna waa inaadan dadka howlahooda faraha la gelin. xigmadda barkeedna waa inaad aamusnaato. ereyga wax dhaawacaya waa sida masaamiir aad ku garaacaysa alwaax. ka cudurdaarashaduna waa inaad masaamiirkaasi ka siibta alwaaxaasi. laakiin aan ku weydiiye, miyuu suulayaa oo meesha ka baaba'ayaa duleelkii oo masaamiirku ku sameeyey? haddaba ka fiirso ereyga aad dadka u adeegsanayso. waxaa laga yaabaa inaad erey qof ku dhaawacdo kadibna ka cudurdaarato, laakiin sida masaamiirku alwaaxa u duleeliyey ayuu ereygaasi u duleelinayaa qalbiga qofkii ah ku tiri. haddii aad ka cudurdaaratana dhaawacaasi weli waa uu sii jiraa. wixii adiga kuu ahaaday way kuu imaan doonaan si kasta oo aad daciif u tahay. wixii aadan lahayn oo laguu qorinna ma heli doontid xitaa haddii aad awood isku daydo. barkinta waxaa ku dul seexda madaxa hodanka iyo faqiirka, kan yar iyo kan weyn, waardiyaha iyo wasiirka. laakiinse ogow, hurdo raaxa leh barkinta kuma dul hurdo ilaa qof damiirkiisu yahay mid deggan oo xasiloon, cabsina aysan ku jirin. afkaaga inaad ku mashquulido cunto ayaa waxay ka wanaagsan tahay in aad ku mashquulido maxaa la yidhi iyo maxaa la sheegay, hebel saanuu yidhi iyo maxaa ka jira. haddaba qiila waqaala intii aad afkaaga ku mashquuli lahayd cunto ku mashquuli, oo markaasi miisaankaagu ha iska siyaado intii ay dembiyadaadu siyaadi lahaayeen. qaladka iyo gefka waad nici kartaa, laakiin ha nicin qofkii gefay. iska nac in allah subxaanahu watacaala lagu caasiyo, laakiin u naxariiso qofkii ilaahay caasiyey. haddii hadal la sheegay wax kaaga dhex muuqdaan, si edable uga falceli, laakiin ixtiraam qofkii yidhi hadalkaa. adiga shaqadaadu waxa ay tahay inaad ka takhallusto cudurka iyo xanuunka, ee maahan inaad ka takhallusto qofka xanuunsan. haddii aad doonayso qof inaad farxad geliso, jeclaysii wax akhrinta. waxaa wax la yaab la ah inaad waddada ku aragto markaad socoto hablo qaawan oo dhar ku dheggan wata, balse waxaa ka sii la yaab iyo amakaag badan in ay ka soo baxeen guryo ay rag joogaan. naxariistu waa ay ka xoog iyo ka awood badan tahay galgacaylka iyo jacaylka. naxariistu waxay kulansanaysaa jacayl iyo galgacayl, dhimrin iyo cafin. dhammaanteen waan awoodnaa inaan wax jeclaanno, laakiin in yar oo naga mida ayaa qalbiyada ku wadata naxariis. jacaylku micnihiisu maaha in qofka aad jeclaatay aad leedahay adigu. marka aad kedada ku jirtana aad qaadato, marka aad kibirsan tahayna aad ka tagto. sidaas maaha jacaylku, ee qofka aad jeceshahay ama xaaskaaga xanaaneey oo u muuji naxariis iyo dhimrin.
ha ku fasahaadin farxaddaada walwal iyo walbahaar, caqligaagana ha ku hallayn waxbaasaysi, guushaada ha ku hallayn kedo iyo been, dadka kale horumarkooda iyo hamigooda ha ku hallayn niyad jab, maalintaadana ha ku hallayn oo ha ku fasahaadin inaad eegto shalay oo la soo dhaafay. haddii aad eegto xaalkaaga waxaad ogaanaysaa in Allah ku siiyo waxyaabo badan oo aadan dalban. haddaba ku kalsoonow Allah oo ogow in Allah uusan kuu diidaynin waxaad u baahan tahay, balse diidmadaasi ayaa khayr kugu jiraa, weliba khayrkaasi oo aadan adigu ogeyn. xikmad iga yaabisay. maalin maalmaha ka mida nin hodan ah ayaa waxa uu nin faqiira siiyey sallad ay ka buuxday cunto hallowday. kadibna ninkii faqiirka ahaa ama saboolka ahaa inta dhoolla caddeeyey ayuu qasrigii ka baxay oo salladii hore u qaatay. kadibna salladii wixii ku jiray oo wasaq iyo qashin ahaa ayuu ka nadiifiyey oo wuxuu soo dhex geliyey ubax aad u qurux badan. kadibna qasrigii ayuu ku soo noqday oo ninkii saboolka ahaa salladii ayuu ninkii hodanka ahaa siiyey. ninkii qasriga joogay ee hodanka ahaa inta aad u yaabay buu weydiiyey ninkii faqiirka ahaa, maxaan kuu siiyey sallad ay ka buuxdo waxyaaba xunxun oo adiguna aad iigu soo celisay iyadoo ay ka buuxdo ubaxyo aad u qurux badan? markaasaa ninkii saboolka ahaa ama faqiirka ahaa ku jawaabay, qof welibaa wuxuu bixiyaa oo dhiibaa waxa qalbigiisa ku jira. ka cudurdaarashada qalad aad gashay ma dhaawaco oo hoos uma dhigo karaamadaada iyo sharaftaada, balse cudurdaarashadaasi waxay kaa yeeshaa qof ku weyn indhaha qofkii aad ka gashay qaladka. shimbiruhu waxay cunaan quraanjada, markay shimbirtu dhimatana quraanjada ayaa cunta. duruuftu waa isbabedeli kartaa, haddaba ha yaraysan arrinta qof. laga yaabee maanta inaad xoog badan tahay, balse berri wax badan ayaa isbedeli doona. mid ka mida dadkii wanaagsanaa ayaa waxa uu yidhi, ka fogow 7 shay, jidhkaaga iyo qalbigaagu way raaxaysanayaan, sharaftaada iyo diintaadana way kuu nabadgelaysaa. kan ugu horreeya, ha ka murugoon wax ku dhaafay. kan labaad, ha isku mashquulin ka walwalka wax aanan weli iman. 3, dadka ha ku ceebeen wax adiguba aad ku dhex jirto. 4, abaalmarin iyo mana sheegasho ha ku dalban oo ha ku raadsan wax aad adigu samayn. 5, shay ha fiirin adigoo muujinaya inaad baahi u qabto shaygaasi oo aadan haysan. 6, ha u caroon qofka aysan waxba ka tarin caradaadu. 7, ha ammaanin qof aan naftiisa ka ogayn waxa arrintaa ka soo horjeeda. marka aad dadka ku dhex jirto, qofka ku daneeya ee muhiimadda ku siiya adiguna danay. dadka kale waa ay ku filan tahay inaad salaanta ka qaaddo oo keliya. dadka qaar waxa ay leeyihiin madaxyo aysan ka faa'iidaysanin ilaa kuwa timaha jara mooye. xigmad cajiiba. nin da' oo duqa baa la weydiiyey, maxaad isleedahay dadku inay kaa sheegayaan? markaasuu yidhi, anigu waan dhimanayaa, iyaguna way dhimanayaan. aniga keligay baa la xisaabinayaa, iyagana keligood baa la xisaabinayaa. maxaa iga galay aniga marka waxa ay iga sheegayaan? hal geed oo keliya ayaa waxay samaysaa malaayiin caleemo kibriid ah. hal caleen oo kibriida ayaa laga yaabaa inay gubto malaayiin geed. haddaba ha uga tegin horumarkaaga hal shay oo kaa soo dhex galay ama xitaa kugu noqday taxaddi aad ka gudbi weysay. horay u soco oo ha quusan weligaa.